halka maanta waxaan ku bilaabeynaa podcast wax dheef podcast waxaan uga hadli doonaa waxyaalo badan oo faa'iido noo leh waxaan maanta ugu hormari doonaa oo ku hormareynaa ahmiyadda uu akhriska noo leeyahay sababta akhriska ee noogu dhibtay ciwaano kala duwan ayaan kusoo gudbin doonaa qaybta wax dheef podcast haddii uu rabiraale ka noqdo haddii aad jeclaan lahayd ama uu jiro ciwaan aad u xiiseynaysid oo aan podcast ka sameyno waxaad noogu reebi kartaa qaybta hoose ee commentiga maanta waxaan ka hadlaynaa haddii uu rabiraale ka noqdo wax akhriska iyo ahmiyadda akhriska uu noo leeyahay anagoo ka bilaabayno kow diinta islaamka waxay ka dhaxday iyo sidoo kale daraasadaha cilmiga ee la sameeyey waxaa kaloon ka hadlaynaa horta maxaa inoo diiday in aan wax akhrino sababaha naga caawin karo inaan akhriska aan bilowno iyo waxaan ka hadlaynaa haddii uu rabiraale ka noqdo waxyaalaha faa'iidada uu noo leeyahay akhriska aan ku horumarnay horta akhriska si guud diinta islaamka waxay ahayd wixii ugu horreeyey ee jibriil soo dejiyo ee nabi maxamed kusoo dego waxay ahayd iqra nabiga sida aan socono wuxuu ahaa ummi waxna ma akhrin jirin waxna ma qori jirin marka intii la qabtay la yiri iqra uu yiri ma ana biqaari ma aniga ma akhriyo halkaas waxay noo tilmaamaysaa wixii koowaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u soo dejiyo adoonkiisa maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd iqra nabi walbana marka loo diraayo nabi walba marka ummadiisa loo diraayo waxaa la siiyaa mucjiso sida nabi muuse usha loo siiyey nabi ciisana uu ahaa dhakhtar daweeyo cudurrada ee dhakhaatiirta daweynin oo nafta xataa qofka soo geliyo ilaahay idinka ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam mucjisadiisa la siiyey waxaa kamid ahayd iqra aqri waxay ahayd mucjiso kamid mucjisada nabiga sallallahu alayhi wasallam la siiyey oo ilaa qiyaamaha jiri doonto qiyaas waxa qiyaasa meeshuu nabiga joogay meel yar oo laba dhagax dhexdood uu joogay baka iqra markii mucjisadaas waxay ahayd mucjisada nolosha dhan adduunka bedeli doonto ilaa hadda ilaa qiyaamaha waa mucjisada jiri doonto iqra in akhri marka ilaahay akhri uu leeyahay noomuu kala qaadin waxa la akhrinayo meesha laga akhrinayo goobta lagu akhrinayo taasna waxay noo tilmaamaysaa ahmiyadda akhriska uu leeyahay iyo wixii koowaad bal fiiri meeqa wax oo muhiim ah ayaa jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala kamuu bilaabin markuu bilaabayay waxyiga lagama bilaabin salaada oog ilaahay qir soon awaamirta muhiimka ay diinta lagama bilaabin taas maxay noo sheegaysaa marka akhriska inuu ahmiyad ballaaran u leeyahay diinta islaamka iyo sidoo kale ummadda dhammaan guud ahaan ummadda dhammaanteed sidoo kale waxaa jirto nin caalim ah oo dhihi jiray qof walba oo wax aqrinin wuxuu yahay waa qof dhintay xataa haddii uu nool yahay waa aragta anaga markaan jikada la shidanayo ama dabka la shidanayo ugu yaraan qofki maanta waxaa laga yaabaa 2 jeer ama qofka ugu yaroo kale inuu 1 jeer wax cuno ama sida caadi 3 jeer wax la cunaa maskaxda nimanka quudka maskaxda ee cunaysa waxaa waay akhriskii marka ummadii la dhahay ummadan waxaa la ummatu iqra waa ummadii wax akhrinaysay waa ummadii la amray inay wax akhriyaan oo waajib ah ilaahay markuu iqra baa yiri aqri baa la yiri inaan marka akhriska wuxuu ahmiyadiis uu noo leeyahay ogaanaysaa sidoo kale Allah subxaanahu wa tacaala qof walba oo muslim ah wuxuu waajib uga dhigay inuu barto diinta islaamka asaaskeeda waajib waa sida dahaarada soonka salaad waxyaalaha soonkaada jibinaya waxyaalaha dahaarada waajib waa taas waxay ogaanaysaa akhriska inuu waajib yahay akhriska hadaadan wax akhrin karin ma sixi kartaa salaadaada oo maya xataa dahaarada ma sixi kartid haddii aadan kitaabo soo akhrisanin oo aadan wax akhrin karin quraanka xataa ma tukan kartid marka akhriska waa muhiim waliba waa waajib inaan wax akhrino qof walba inaga mid ah wuxuu tukadaa 17 rakaco baa waxaan ku tukanaa inuu ilaahayna daba mariyo kuwa loo carooday iyo sidoo kale kuwa dhunsan غير المغضوب عليهم ولا الضالين hay maxaa laga wadaa labadaas qaybood waxaa laga wadaa yahuud iyo nasaaro yahuud waxay ahaayeen kuwa ayagoo cilmi ilaahay si aan caabudin sidoo kale nasaaran christian waxay ahaayeen kuwa ilaahay ayagoon aqoon u lahayn caabudeen marka hadii aan wax baranin oo waxa aan akhrin halkaas maxaa nooga cadaanayso in akhriska waxaa nooga cadaanayso in labadii qaybood oo maalin walba ilaahay aan ka magangalaynin qayb kamid ah aan sifadii aan ku tilmaamin ilaahay baan ka magangalin marka qof walba iyo goob walba uu joogo waxa qasab ah in uu wax aqriyo hadii aad tahay hooyo toban cunug dhashay qasab ay ku inaad wax aqriso hadii aad tahay aaba xamaalanaya carruur badan ay ka dambeeyaan qasab ay inaad wax aqriso hadii aad tahay arday wax baranayo waxaaba tahay qofka mudan inuu wax aqriyo waxa isweydiinayna marka aan wax aqrino sideen wax u aqrinaa kow waxa kale isweydiinayna akhriska hadii aan isku daayo maxaa igu dhici karo akhriska hadii iska daysid maxaa igu dhici karo maxaa sidoo kale waxaan ka waramaynaa haduu ilaahay idmo hadii akhriska aan iska dhaafno oo faraha aan ka qaadano oo aan waxba akhrininba nolosheena sidee bay noqonaysaa
culimadii hore waxaa laga sheegi jiray, waxaa la yidhi hadda kahor midbaa wuxuu ku dhahaa la yidhi shiiqo waxaan rabaa inaan kula hadla ii istaago, markaas wuxuu yidhi qoraxda markay istaagtaan ku istaagaya. marka saas waxay noo cadeynaysaa siday waqtigeeda uga faa'iideysan jireen. waxaa la dhahaa imaam al-Bukhari markii uu qoraayay intaas oo xadiis kutubkiisa xadiiska oo saxiix al-Bukhari ah, waxaa la yidhi mar walba habeen kasta uu qori jiray, mar walba xadiis qoro uu 2 ragcadood soo tukan jiray. bal waxaa qiyaastaa meeqa ragcadood tukada, meeqa xadiis buu qoray, meeqa habeen buu usoo jeeday. wuxuu qoray kitaabka ugu saxnida badan ee qof bilaadan uu gacantiisa uu ku qoro. qof bilaadan kitaab uu qoro kitaab ugu saxnin badan ma jiro saxiix al-Bukhari. marka qof culimadii waaweyneed ee ka tagay sida hadda imaam Shaafici oo kale bal fiiri, imaam Ahmad bin Hanbal fiiri, qof bilaadan ah buu wuxuu sameeyay fanuun dhan fan ka soo bartay. markaas wuxuu noqday madhab dhan oo lagu tiirsan yahay ummad bilyan qofood ay ku tiirsan yihiin. taas muxuu ku gaaray akhriska oo muhiimada saar. waxaa lahaa hadda aaladaha social media tusaale qadan soo qaadano Facebook oo kale, ninka Facebook iska leh maalinka wuxuu akhriyaa lahay 200 oo page. bal qiyaas ninka Facebook iska leh ee maalin kasta anaga aan soo galeyno, aan ku madadaalanayno, waqtigeena aan ku dhuminayno, ninka iska leh lacagna wuu ka sameeyaa, asagana 200 oo page buu akhriyaa. anagana dadkii lagu waajib yeelay inay wax akhriyaan maba akhrinayno. mararka qaar waxaa laga yaabaa adoo wax akhrinaysa marka qofku baad inuu ku dhaho imtixaan miyaa leedahay, maya. ma jaamacad baa dhigataa, maya. marka maxaa wax u akhrinaysaa oo maxaa wax u akhrin waay? ilaahay baa amray inaan wax akhriyo. ilaahay baa wuxuu amray inaan wax akhriyo, waajib bay ugu tahay inaan wax akhriyo, inaan maskaxda dhis waajib bay ugu tahay. sida caloosha waxaa loo sameeyay alam ama wax la dhaho wax na dareensiina inaan gaajeysannahay. tusaale kale maanta saaka markay gaajo ku qabato waxaa xasuusanaysa inaan cunto cuntay, laakiin maskaxda meelaha waa lagu tarbiyeeyaa. maskaxda markii lagu tarbiyeeyo oo sidoo kale lagu sameeyo in maskaxda ay yeelato wax ah maalin kasta aan wax akhrino, maxay tahay maskaxda quudan siinayna sida jirkeena uu ugu baahan yahay nafaqooyin kala duwan iyo cunooyin kala duwan ugu baahan yahay, waliba maalin kasta ugu baahan yahay. subaxii markaa quraactid, markaa qadaynaysid quraacda waxba kama haysid, markaa sidoo kale qadaynaysidna casho, markaa cashaynaysidna qadada waxba kama haysid. saas si la mid ah iyo ka balaaran buu jirkeena ugu baahan yahay in aan wax akhrino. waxaan isweydiinaynaa marka maxaan akhriyaa, sidee baan wax u akhriyaa? kow horta waxaan akhrinayno waxaa waaye kutubka quraanka, kitaabka quraanka waa inaan akhrino maalin walba. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na siiyaa 24 saacadood. sidoo kale ilaahay haddaad dib u fiirisid, ilaahay wuxuu dhahay haddii aad nimcada macnaha idin sii aad tirisaan in tucuddu nicmatallahi laa tuxsuuha, haddii aad tirisaan nimcada ilaahay sii maba koobi kartaanba. bal waxaa qiyaastaa indhaha maanta wax ku arkeyno, dhagaha waxaan ku dhageysanayno waa free alxamdulilah. maanta qof baana awoodin in uu maanta kaadida musqusha geeyo, oo laga yaabo markaa qofka la weydiiyo kaliya laga dhaqo kale inay kaadiyaan mar hore ugu dambeysay. adigana si fudud baad musqusha u tagtaa, maskaxda fariin soo dirto, fariinta marka soo dirto isla marka waxaa leedahay musqul oo baahanahay suuliga aadisa. alxamdulilah. ma waxaas marka intaas alihi noo galay wuxuu mudan yahay in quraankiisa iyo kalaamkiisa aan ku dhaqano oo aan akhrino. kow marka maalin yeeso noo dhalan anagoonan lahaanin wardi qur'aan waxaa la lahaa wax maalin walba aad akhrin karto. waxaa laga yaabaa inaad taqaano juzcamaha kaligiis maalin kasta akhri. waxaa waajib ah quraanka inaad xifdisid, waajib ma aha, laakiin waxaa waajib ah in quraanka aad baratid macnaha uu ku fadhiyo. tafsiirkaada af Soomaali waxay tiraahdaa gacmo waxaa looga dhargaa biyahaaga. macnaha inaan qaldan laga maamaada, macnaha gacmo biyo waxaa looga dhargaa gacmahaaga. marka biyo looga dhargaa macnaheedu maxay tahay? biyo sacbada looga dhargaa. biyo markay sacbada si fiican u cabbi, si fiican u cabaysaa. marka quraanka aad barato oo waliba macnihiisa af Soomaaliga aad barato, waxaa ogaanaysaa in adiga lagula hadlaayo. waxaa jirta su'aalo cajiib ah oo Sheekh Mustafa uu bixiyay, wallahi markaan soo xasuusta cajiib waa tusaalahaas. wuxuu ahaa, wuxuu dhahay bal waxaa qiyaastaa adigoo madaxweynaha ugu sareeya dunida uu ku soo diray baalkii fariin. tusaale aan kasoo qaadano hadda madaxweynaha Mareykanka oo kale aan iska dhahno, walillahi almathalu aclaa. madaxweynaha Mareykanka kale wuxuu kusoo diray waraaqad adeeg dantaada ay ku jirto. haddii aad ka waran ama jaynaha kale ingiriiska waa la fahmi karaa. jaynaha kale madaxweynaha jaynaha kale wuxuu kusoo diray waraaqad jeebka gadaalaha gashata. waxaa dhahday fariinta anay igu socotaa madaxweynaha jaynaha ii soo qoray, laakiin ina fahmi rabi. sababtoo ma tahay maya, waxaa lagu qoslaa, waxaa leeyahay ninkaan maxaa ka qaldan, ma maskaxiyan miyuu u xanuunsan yahay? taasoo lamid ah yaysan ugu dhicin. waa in quraanka aanan xarfihiisa bas ah
aan akhrinin laakiin aan barano macnaha uu ka hadlaya quraan koo marka waxaan baranaynaa oo akhrinaynaa quraanka ilaahay lambar 2 waxaan ina akhrina ay muhiim tahay xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam sababtoo ah waa qofka aan ku dayanayno ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay ma ataakum rasuul faqudhu wa ma nahakum an fantahu macna qofka aan ku dayanayno ee noo ah ku dayashada waa nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan barno diinta qodobka saddexaad aan baranayna maxay tahay inaan barno quraanka oo waliba tafsiirkiisa aan ku barano in xadiisyada aan ku barano waliba aan ku dhaqano qodobka saddexaad maxay tahay in aan barano taariikhdii dadkii hore hadda kor waxaa la yiri arday jaamacad dhiganaysay baa waxaa la weydiiyay shanta khulafaa ur-raashidiin afarta khulafaa ur-raashidiin sidee bay isugu xigeen qofka lagu shaneeyo waa Umar bin Abdulaziz saas oo la socdo insha Allah markaas waxaa la dhahay afarta khulafaa ur-raashidiin sidee bay isugu xigeen muxuu yiri matqaana ardayda maxay ku jawaabeen qaar baaba garan waayba taas maxay ku dhacday in taariikhdii muslimiinta aysan baranin marka taariikhda in la barto waxay naga caawinaysaa kow in dadkeena wanaagsanaa aan horta cashiro badan oo ku duugan aan ka barano lambar 2 in aan la socono waayaha hada culimada galbeedka waxa la markii ay rabeen inay heer fiican gaaraan waxay sameynayeen in Baghdad iyo Masar culumtii ku joogtay ay qaateen ay turjumaan kadib ay ku dhaqmaan hada dib u soo fiiriso oo maanta u ictiraaqad waxa jirto waqti oo soo maray waqtiyada islaamka kamid ah waqti soo maray loo yaqaanay golden age islamic golden age waqti casrigii dahabiga ah ee islaamka macnaha maxay tahay casrigii dahabiga islaamka waxa loogu magac daray wax walba waxaad arkaysaa waagaas waxa jiri jiray in aarato qof oo ah waxa arkaysaa qof oo ah oo caalim ah oo fiqh bartay oo astronomy bartay xidigaha bartay dhakhtarnimo bartay adi 5 caqayabood oo kala duwan bartay arkaysaa hadana qof walba hal fiildibo buu waxawaaye uu ku takhasusaya marka dadka hore maxay sameyn jireen cilmiga hada dib u fiiriso hada cilmiga ugu horeeyay ee mentalka ama qaybta maskaxda waxa ugu horeeyay ibn Sina iyo dhaqaatiirta muslimiinta hada dib u fiirisid aljabra oo ogeed حتى algorithm-ka ninka soo ictiraaqay ee internetka maanta dunida kala haayo ee ah lambar 1 oo laf dhabarka nolosha u ah qofkii laga soo helay wuxuu ahaa qof muslim ah marka taariikhda ina xasuusano waxay naga ogaanaysaa in halyeeyadiina na soo dhaafay aan barano iyo in sidoo kale waxyaalihii ku duugna aan barano taariikhda waxa kale maxay akhrinaa kala waan waxa akhrinayna oo aan baranayna xirfadaha waxa laga yaabaa inaad tahay dhakhtar baa tahay laakiin aad isku haleynayso 6 sano aad jaamacad ka dhiganayso jaamacad sida banaan buuxina si furahaas ayna siinayso waxay tahay waa in albaabka anaga waa furaha tusaalada lagu siiyay furaha guriga free kala lagu soo siiyay la guriga wuxuu keenay qol badan oo lagu dhahay gajeelkaas furo laakiin gudahaas gadaal waxa ku jiro qaanada dahab ah waa raadinaysa samahan saas limad ah taas limad ah jaamacada waxayna sameynaysaa in aan albaabka furaheeda aan helo jaamacada isku haleynin jaamacada baro cilmiga caafimaadka baro adoo baranaysid waliba cilmi ka baaxad weyn baro waxa akhrisaa buugaagta waxa akhrinaysaa oo ka hadlayso maskaxda sida u shaqeyso akhri buugaagta ka hadlaayo sida tusaale kale waan ku salaam saaxiib akhri waxa akhri kartaa oo kale dambaalada quraanka waxaad akhrin kartaa casriye waxaad akhrin kartaa buugaagta dhabar adayg buugaagta ka hadlaayo waqtiga muhiimadda maxay tahay waa in aad barato koow buugaagta dad habla dhaqanka dadka buugaagta ka hadlaa waa inaad akhrisid buugaagta ka hadlaya maskaxda xirfadahaada waa inaad horumarisid mar qofku wax akhriyaa waa qof mar walba is tajdiidiyo is cusboonaysiin marka waxaan isweydiinaynaa waayahay waxa aan akhriyay maxaan ka faa'iidaa inaan wax akhriyo haddaan wax akhrin waayna maxaa igu dhacay haddaan wax akhrisid waxaa la dhahay akhriska waxaa la ogaaday qof walba oo maanta wax akhriyo waxaa la ogaaday kow horta Soomaalida marka waxay ku hamaahi jirtay qofka waxay ku hamaadaa qofka marka qofka ishiisi asagoo isla eg tahay dhagtiisa ka weyn ali jiray macnaha waxa laga wadaa qofku wuxuu maqlo wax badan buu maqlaa laakiin wuxuu arkayaa inta cimrigiisa uu nool yahay laakiin hada sheekadu waxay isku bedeshay haddii aad tahay qof akhrista ah macnaha waxaa noolaan kartaa cimrigii qarnigii ku dhaafay qarniga soo socda oo saadaalin kartid iyo qarniga anoosha marka cimrigaadii baad ballaarinaysaa waxa laga yaabaa maanta inaad akhrinaysid book Mustafa Maxamuud uu ku qoran yahay Mustafa Maxamuud suurtagal ma ahayn inaad is aragtaan laakiin marka fikradihiisa akhrinaysid ee boogiisa akhrinaysid waxay la mid tahay asagoo Mustafa Maxamuud ku sheekeenayo oo xikmadihiisa kaaga sheekeenayo ee aadna dhageysanaysid qofka marka kaliya waxa la uu isticmaalo
maskaxdiisa diirad saarkiisa aragiis dhammaan macnaha dhammaan dareemaha jirka markuu isticmaalayo waxaa waaye oo markuu wax akhrinayo tusaale kale waxaa laga yaabaa maanta waxaan ku leeyahay waxaan tegey buurta daalo markaan tegey waxaan kor u fuulay qaybta figta hore roob baa da-ay isla markii maskaxdaada maxay sawirinaysaa buur anoo sii korayaa sawirinaysaa maxaa kaloo sawirinaysaa roobkii da-ayaa sawirinaysaa marka mar walba buug aa akhrinaysid kow waxaa isticmaalaysaa maskaxdaadii adigoo takhayul imagination ku sameynayo wixii aad akhrinaysa kow number 2 waa sida adiga qofka uu kuu sheekay oo dhageysanaysa wixii number 3 diirada saaraysa number 4 waxaa laga yaabaa inaad xog ku qorato ama fikrado badan oo balaaran uu ku siiyo taasa marka waa maskaxda isticmaalaysa waxaa la ogaaday qof walba oo wax aqriyo in uu yahay qofka hadhow markuu weynaado aysan ku dhicin loo yaqaano cudurka asaasaqa waxaa la dhahaa Alzheimer disease la dhahaa Alzheimer waxaa la dhahaa cudurada qofka inuu miir beelo ama inuu isku dhex yaaco qofkii oo garan waayo meesha uu joogo goobta uu joogo dadkiisa asaasaqa la isku dhex yaaco waa inuu qofku isku dhex yaaco ma suuxaayo laakiin uu isku dhex yaacaya wuxuu garan waa marka kow maskaxdaada mar walba waxay sameynaysaa in unugyo cusub wayna quudanaysaa qof quud haddii maanta aan isbarbar dhigno qof nafaqo cuno oo laban iyo qof aan ladnayn see kala yihiin qofka ladan waa aragta qurux loo waay laakiin qofka aan ladnayn nafaqo fiican haysan qof caata oo tacbaan oo cuduro kas u nugul waay saas si lamid ah waxaad u nugushahay in oo ay kugu dhacaan cudurada maskaxda ku dhaco qof walba oo wax akhriyo cudurada maskaxda ku dhaco way ka yihiin allaha waxaa kaloo la ogaaday in ay jiraan haddii aadan wax akhrinin maskaxdaada inaysan kobceynin fikradahaadii waxba aysan kusoo siyaadeynin marka maxaa kaa caawin karo in aad wax akhriso waxaa wax kaa caawin karo kow in aad ogaato waxa koowaad ee nafsadaada aad ku abaalmarin karto inay tahay inaad wax akhriso markaad wax akhriso waxaad kordhisay khibradaada waxaad kordhisay cilmigaada waxaad sidoo kale aad samaysay in aad maalgashiga ugu wanaagsan nafsadaada maalgashatay kow waxa koowaad maxay tahay waa inaad akhrisato inaad wax akhriso macnaha wax inaad wax akhriso macnaheedu maxay tahay waxaa waaye waa abaalmarinta ugu wanaagsan ama hadiyada ugu wanaagsan oo waqtiga aan siin karo lambar 2 maxaa wax u akhrinaysaa waxaan wax u akhrinayaa in aan qaatay amarkii ilaahay ee ahaa iqra lambar 3 maxaa u akhrinayaa in noloshayda aan dhiso nolosha familkeeda aan dhiso waxaa laga yaabaa inaan hooyo tahay hooyo wax akhrinayso ilmaheedan wax way akhrinayaan number 3 maxaa wax u akhrinaysaa in waxa aan baranay aan diirada saaro aan kor u qaado oo aan wax badan ogaado diinteeda ina qof walba oo wax aqriyo oo diintiisa barto wuxuu sameynayaa in uu saro u qaaday xirfadiisa sidoo kale wuxuu saro u qaadayaa maskaxdiisa uu kordhinayo uu kobcinayaa waayo aragnimadiisa kor u qaadayaa marka wax aqri adigoo og in nafsadaada waxa ugu hodiyada ugu qiimaha badan ee asiinis ay tahay wax aqri adigoo maskaxdaada dhisay wax aqri adigoo bulshada dhisay wax aqri adigoo qaadanaya amarka ilaahay wax aqri adigoo ilaahay ugu dhawaanaya sababtoo ilaahay muxuu dhahay ma sinno kuwa wax bartay iyo kuwa wax aqoon sidoo kale suuratu mujaadala ilaahay muxuu ku dhahay aayada ilaahay wuxuu ku dhahay macnaha kuwa ilaahay rumeeyay waxay leeyihiin kuwa macnaha cilmiga la siiyay waxay leeyihiin darajooyin ilaa cilmiga kuwa la siiyay iyo kuwa ilaahay rumeeyay kuwa cilmiga la siiyay darajaad leeyihiin darajooyin leeyihiin mar cilmiga lagu sheegayana waxa furo u ah inaad wax akhriso haddii aad arday tahay akhri waxbarashada iyo wax ka baxsan akhri habla dhaqanka buwaagta habla dhaqanka ku saabsan akhri waxa kale oo akhrisaa buwaagta oo ka hadlaya maareynta waqtiga waxa akhrin kartaa buwaagta ka hadlaya aqoon weligaana iska ilaali in aad akhrisid buugaag aan shaki gelin karo iimaankaada buwaag shaki gelin karo qofnimadaada buug kasta oo akhrinaysid waxaa ka fiirisaa fikradda uu xambaarsan yahay maxay tahay arday badan dad badan oo dhalinyaro waxa arkaysaa Soomaaliya weligood gees aan uga bixin haddana diintoodii iyo iimaankooda shaki laga galiyay sababtaas maxay tahay ayagu waxay akhriyeen wax aan adduuni aakhiro anfacaad u lahayn waxba la akhriyaa laakiin maxaad akhrinaysaa waxaad akhrinaysaa wax nafsadaada qiimo u leh wax adduun iyo aakhiro anfacaad ku leh akhri gaalada wax waa laga baran karaa laakiin waxaan ka baranayaa maxay tahay waa wax aan iga fasahadinayn caqiidadii aan aaminsanaa ee saxda ahayd oo ilaahay inaan aaminsanahay diinteedan aan shaki laga gelin karin marka waxa caqiidada number 1 inaan ilaashano waana sababta ugu bilownay akhris hadaan bilaabayna waa inaan diinteena aan barano oo aan marti aan uga noqonin oo sidoo kale rasuulka nabi sallallahu alayhi wasallam xadiisiisa aan baran aan marti uga noqonin waxa kale oo nafsadeena ku abaal marinayna in xirfadeena sar u qaadno tusaale kale maanta waxaad ahayd artist hadii aad wax badan akhrinin
ama waxaad ahayd qofka xayeysiiyahaas marka haddaad mar walba aadan baranin xirfadda xayeysiinta, xirfadda oo dad la hadalka way kugu adkaanaysaa. marka lambar 1 iyo lambar 2 iyo lambar 3 waa maskaxda furaha, waana waxa keli ah ee ku horumari karno oo maskaxdeena aan ku dhisan karno. Soomaalida waxay tiraahdaa qof walba hadda cusub lagu daro amaleynaya, qof walba oo ka akhri haddaa aragto qof walba maanta kaa sareeyo ee kaa horumar badan uu ka akhris badan yahay. maanta dunida waxaa nala nool niman gaala ah ee aan la amrin inay wax akhriyaan, milyaneero ah, qaarkood 600 oo beej bardhay akhrinayaan. culimadii hore imaam shaafici oo kale wuxuu sameyn jiray Allah quraanka uu dhameyn jiray, maalin walba quraanka uu dhameyn jiray, maalinka xataa mararka qaar 2 jeer dhameyn jiray. ramadaankii oo kale wuxuu sameyn jiray Allah in oo 60 jeer uu quraanka dhameeyo. waxaa qiyaasta quraanka waa 600 oo beej, 600 oo beej quraanka. marka aan aqrino waxaan rajeynayaa muuqaalka markii aad daawatid in wax badan noloshaada ay ka bedeli doonto. sidoo kale aad bilaabi doonto inaad wax akhriso, aad bilaabi doonto maalin inaysan ku imaanin ilaa wax aad akhriso mooyaan, maalin inaysan ku imaanin ilaa noloshaada aad istimoogii. nolosha waa sida guri. tusaale kale guriga markaad dhisanaysid waxaa sameynaysaa ka soo qaad inaad dhisanaysid guri oo sar ah ama dabaq ah. guriga dabaqa markaad dhisto, aasaaska markaad dhisid, wax walba way ku yaalaan. markaad aasaaska dhameysid oo gurigii aad taagtid, haddii aadan nuuradeynin, haddii aadan rinjiyeynin, haddii aadan qurxinin, haddii sidoo kale maxaa ku dhacaa guriga? maxaa ku dhacaa? waa aragta guriga markii la dhiso ma looga tagaa? maya, siligaa lagu xiraayaa, waa la qurxinaa, rinjiya lagu sameynayaa, kilada kala duwanaa lagu sameynayaa, waa rinjiya lagu sameynaa, waxyaala dhalaalis oo albaab ganjeel qurux badan loo dooqayaa, geedaa lagu beerayaa. waxaas dhan maxaa laga wadaa inuu qurxiyo? bal waxaas loo qurxinayo waxaa waa guri la degaayo. bal waxaa qiyaasta maskax dhan ee laga sugaayo in nolosha dhan ay mas'uul ka noqoto, maskax dhan ee laga sugaayo inay hooyo noqoto ama aabe ay noqoto, maskax dhan ee laga sugaayo in nolosheeda ay bedesho, ehelkeedii iyo ayadana wax ay ku tarto. ka waran, ayadaa mudan in la dhiso, ayadaa mudan in la qurxiyo. qofka waxaa qurxiyo akhlaaqdiisa, akhlaaqdaadana waxaa qurxinaya akhriskaadana waxaa qurxinaya waxaad akhrinayso waxa ay yihiin. ka war haddaan ku dhaho 2015 sheekh Mustafa wuxuu ahaa 10 qof ee ugu akhrista badan dunida soo gala. waa aragtay sheekh Mustafa markaad dhegeysanaysid cajiib suu yahay, waxaa isleedahay adigu waxaa laga yaabaa 1 saac ayadoo ah muxaadarada inay hore dhaqso ay dhamaato. marka aqri oo dhageyso, dadka waxaa ka anfacaysa. social media waa ku jirtaa, laakiin social media aad ku jirtid ka faa'iideyso, waqtigaada maal gasho. waxaa ogaataa aakhira markaa tagno 4 su'aalaha la weydiin doonaa marka Ilaahay hortiisa aan istaagno. su'aalaha waa 7, 3 waxaan ugu weydiin doonaa qabriga markaa galno, Allah noo fududeeyo. 4na Ilaahay hortiisa, 4ta Ilaahay hortiisa la weydiin doono. 2na waa dhaqaalaha ay ku saabsan tahay, 2na waxay ku saabsan tahay cimriga. 2da cimriga ku saabsan guud ahaan waxaan weydiin doonaa cimrigeena meeshaan ku luminay. si gaar ah waxaan ugu weydiin doonaa xagee baad ku lumisay dhalinyarnimadaadii. marka dhalinyarnimadeeni waa waqtigeena, waa waqtiga maanta ugu xoog badannahay, ugu caqliga badannahay, ugu qiimaha badannahay. aan ku nooleyno oo ku hagaajino oo ku akhrino buugaagta cilmiga inoo leh, anagoo oonan ka gaasirinaynin nafsadeena inaan akhrino. waxaa kaloo kugula talinayaa buugaagta akhrinaysid adiga soo gado. markaad soo gadatid buugaagta adiga aad lahaatid way qurux badnaan doonaan. qayb maskaxdaada gurigaada waxaa uga dhistaa qayb yar oo maktabad ah oo aad markaad soo gashid inta dhacmaha ku siis boorsada meesha ku labisanayso kala agtada dhigan kartaa si aad dhahdid waaw maasha Allah waxa waaye na wax akhriyo waa buugaagta. marka aan wax akhrino sidoo kale walaalayaalo aan ahaano qof jadwal wax akhris leh oo nafsadooda iyo noloshooduba dhiso. sidoo kale aan diyaarino su'aasha aakhirna loo sugaay. hadda waxaan weydiin doonaa xoolaha intee ka keentay, xagee ku bixisay, cimrigaada maxaa qabatay, dhalinyarnimada maxaa qabatay. marka dhalinyarnimadeena iyo weyninkeenaba aan ahaano kuwa wax aqriyo. ummadii iqra la dhahay hadii aysan wax aqrin, hadii aad hadda wadamaas tagto kale waxaad arkaysaa qof wax iska aqrinaayo. Soomaaliyana qofkii wax aqrinaayo imtixaan loo diyaarinaya. marka yaana wax u baranin xataa wax baranayna xataa in aan sameyno inaan waxaan aan ku baasno imtixaankeeda, laakiin aan wax u barano si noloshana wax nooga caawito. halkaana podcast-keen kusoo gabagabeynayna. waxaan jeclahay insha Allah aan rajeynayaa in wax badan aad ka fahanteen oo noloshina saameyn doonto. hal qodob oo muhiim ah in kugu daraya waxaa ogaataa baadida waxaa waaye waxaa la yiri aqoonta xikmada waa baadida qofka muslimka ah. meel kastoo baadi aad ku aragtid xikmad ka qaado. halkaan kusoo gabagabeynayaa haddii aad jeceshahay podcast-ka qaybaha ciwaana ayaan kasoo hadlo waxay igu reebi kartaa qaybta hoose. waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay adiga kugu anfaco.
anigana igu anfaco waana mahadsantahay. Jazaakum allah khayr. Salaam nabaadiina saaxiib.